waxaa ilaa shalay gelinkii hore baraha bulshada iyo waliba gaar ahaan kuwa social media dadweynuhu aad u la fagurayeen warbixin been ah oo waxba kama jiraan ah taas oo muujinaysay dadku soo qoreeyeen in arday reer Puntland ay u dhoofeen xamar si ay imtixaan u galaan ardayda Puntland shalay ka dhooftay magaalada Boosaaso aniga oo agaasimaha tacliinta sare iyo deeqaha waxbarashada ah iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa sagootinay waxaan u sagootinay dalka Turkiga waxayna heleen deeq waxbarasho oo loo yaqaan partial scholarship taas oo ay fududeysay wasaaradda waxbarashada iyo waliba shirkadda Sahal Enterprise iyadoo maqal iyo muuqaal ah habeen hore baan si weyn ugu sagootinay gudaha Puntland warbixinteedina wax rajayn doona insha Allah inaad aragteen daalactaana waxa sidoo kale nasiib darro ah in warbaahinta qayb kamida kuwa Muqdisho ay baahiyeen warar ku tirakuteena oo la xiriira warbixintaas in arday reer Puntland ay tageen magaalada Muqdisho waxa isweydiin mudan ardayda Puntland iyo guud ahaan imtixaanka dugsiyada sare gaar ahaan fasalka afraad iyo 8aad waxa la galaa bisha shanaad meel walba oo ku taala Soomaaliya haday tahay Puntland haday tahay koonfurta Soomaaliya iyo haday tahay qaybaha kale ee Soomaaliya bisha aan maraynaana waa bisha labaad lama gaari marka xilli imtixaan ay galaan arday dugsi sare ama Puntland ha ahaato ama kuwa kale ha ahaadaan sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadalno Soomaaliya waxa caalamku siiya deeqo waxbarasho taas oo loogu talagalay in la siiyo ubadka Soomaaliyeed waxaana lagu helaa magaca ummadda Soomaaliyeed hadda bishan la soo dhaafay waxa gudaha Soomaaliya soo gaaray deeqihii waxbarasho ee wadamada China Ruushka iyo Hindiya deeqahaas oo lagu helay magaca ummadda Soomaaliyeed Puntland ay qayb ka tahay awalna aan qayb ka heli jirnay waxaan ilaa labadii bilood la soo dhaafay dhowr jeer la xiriirnay wasaaradda waxbarashada ee xamar si ay u soo gudbiyaan inta ay Puntland ku leedahay taas oo awal aan ku heshiis ku ahayn waxaan la xiriirnay wasaaradda gaar ahaan wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dawlaha ilaa haddana wax jawaab kama hayno deeqaha hadda soo gaaray Soomaaliya waa China Ruushka iyo Hindiya marka la fiirsho Puntland qayb muhiim ah ayay ku leedahay waxa nasiib darro ah oo aan ognahay markii wasaaradda waxbarashadu ay ka soo jawaabi weyday aan ogaanay in deeqihii la qaybiyay sida daraadeedna dad gaar ah oo xamar jooga lagu qoray doorkii Puntland iyo doorkii ummadda Soomaaliyeedna si gaar ah ay u afduubteen wasaaradda waxbarashada ee federaalku waxa nasiib darro ah in wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada mudane Jaabir uu yahay xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka kuna matala Puntland sidoo kale uu yahay wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada tacliinta sare matalaadiisa dhabtaana ay tahay iyo deegaan doorashadiisu Puntland markii aan la xiriirnay waxaan ogaanay in isagu uu si gaar ah u maamulay deeqihii waxbarasho ee Puntland ku soo aaday waxaan marka u ogeysiinaa dadka reer Puntland in arrintaasna si toos ah ay uga warhayaan waxaan waalidiinta ardada iyo bahda waxbarashada u sheegnaa inay isdejiyaan inaan wax dhibaato ah jirin in arrintan cid ay khusayso ay mas'uuliyadda qaadayaan hadii Ilaahay yiraahdana sida u dhaqsiyaha badan ay u soo dhamaan doonto hadii Alla idmo waxaan rabaa inaan sidoo kale dadka reer Puntland ee la marin habaabiyay u sheego dawladda Soomaaliyeed ama dawladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashadu ma leh awood ay ku tayeyso imtixaanka Soomaaliya sidoo kale ilaa hadda ma aysan hanan qaybaha sida gaarka ay u maamusho ee loo yaqaan koonfurta Soomaaliya sidaad ogsoontihiin magaalada Muqdisho waxa laga galaa laba imtixaan mid gaar ah wasiirka warqad soo saaray Abdullaahi Goodax Barre uu leeyahay waa in daladuhu qaadaan imtixaan gaar ah markaas mar labaad baa hadana isagu imtixaan labaad ka qaada ardada degan koonfurta Soomaaliya si ardada markaas loo jahwareeriyo waxaan anagu soo jeedinaynaa dadka reer Puntland wasiirka wasaaradda waxbarashadu iyo wasaaradda waxbarashada federaalku imtixaanka ma qaado Somaliland ma kormeerto uma tagto imtixaankooda wax wara kama hayaan sidaas la mid ah
imtixaanka markay dhameystaan ardayda Somaliland markii ay tagaan magaalada Muqdisho iyagoo wata shahaado ay ku qoran tahay Jamhuuriyadda Somaliland aanu hayna sawiradeeda wasiir Goodax Barre waa u bedelaa maxaa ku gaar ah ardayda reer Puntland annagoo waliba wadana warqad shahaado aan cidina bedeli karin waxaan laga kharibi karin kuna qoran yahay magaca dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo magaca dawladda Puntland